madaxweyne laba su'aalood oo maskaxdayda ku guuxaysan rabaa inaan ku weydiiyo qadiyada Soomaaliland mar walba waxa loo wajahaa si aan sax ahayn madaxweyne adigu ma aaminsan tahay in Soomaaliland lagu soo celin karo qaab diblomaasiyaysan oo faragelis ah oo waliba laga yaabo inay si careysiiso Soomaaliland qadiyadeeda waa qadiyad Soomaaliyeed xalkeedana Soomaaliya u yaala diplomatic pressure lagu abuuro Soomaaliland waa diblomaasiyadda iyo sharciyadda caalamiga aan haysanaan aan ku gacan maroojinayna la yiraan nooma keenayso Soomaaliland way si fogeynay maxaqaa'iqa adduunyada ka jira waaqaca tilmaamayo xoogga diblomaasiyadda dal isdiidan haduu miday karo Taiwan iyo China miday lahay China ma xoog ku yaryahay veto power leh adduunyada joogto jasiiradda yarto Taiwan waa diblomaasiyad barashar waa ku keeni weyse United Nations ka soo raacday inta ka barashar garay dalka cilaaqaadka ka goosada dhaqaalan ku siinay wax kastay ku sameeyeen Taiwan waa jirtaa waa joogtaa Soomaaliland hal siyaasadeed oo aqal ku salaysan oo Soomaaliyeed annagay naga rabtaa hadba intaan juhdi iyo dadaal gelino qadiyada Soomaaliland ayay noo jirtaa marka meelaha laga doonayo oo laga raadinayo qadiyada Soomaaliland ma jirto madaxweyne su'aasha labaad raba inaan weydiiyo waxay tahay imaaraadka farageliska badan oo lagu wada dawladda Soomaaliya waa ogtahay odagu waa ogtahay Soomaalidu waxay tiraahdaa balaayo inta ay muuqatay dabal qabta leedahay marka madaxweyne hadda inta qabasho leedahay ma iska qabahayna ma saadowta markay faragelin weyn sameeyso aan waxa leenahay waan qiyaamta imaaraadku ayuub khaliijku sheegay aniga ma oga khaliijka ayuub meel cadow noogu ahaayeen ma aqaan dalkan mugo burbur ka dhacay wixii nin walba suuqa bakaara mugo ku ganacsan waay suuqa bakaaraha mugo ku ganacsan waay dambiishiis yarta ku inta ku qaato Dubai la dagay milyaneeraan ku sameysay Dubai Soomaali ah oo maanta joogo shirkadaheena markii halkan sharciyad lagu register garay markii la waayay xagga inta la geeyaa laga register garay Dubai waa wada degeen xarumay ku leeyihiin kambani Soomaaliya ka jiro oo significant oo macna leh oo aan Dubai xafiis iyo xarun ku lahayn ma joogo isbitaalay fureen maalin ka 3 oo 400 qof oo dadka Soomaaliya meesha ugu nugul ah oo inta lagu daaweeyo daawadana la siiyo inta visit loo qaado daawadiyo free ana la siinayay xaray xagga noogu dhiseen ciidamada maanta aan shinsanayna qaar kamida u tababareen ay ku qalabeen ay ku hubeeyeen xare ay degaanna waa horteeda ay ka dhisayeen qabyo waa wili waa taala ayadoo qabyo ay meesha ku taala yaa aniga carab cadaawad noo ah oo na dulminayso oo nagu taagan oo na dilayso oo na duminayso ma arkin waxa la sheegaya waa huuha waxba kama jiraan wax ilaahay abuuray oo ka jira ma jiraan waa jooji hadda inaan iraahdo Soomaaliya ha noolaato waxaan